muslimka ahu walaashayda muslimadda ahay maanta waxaan idiin soo gudbinayaa arrin idinka ilmaysiin doonta. wallaahi qofkii iimaan lihi arrinuu ka ooyi doono ayaan maanta idiin soo gudbinayaa. kani waa masaajid wuxuu ku yaalaa Andalus, wuxuu ka mid ahaa masaajidda Andalus uga caansan. sidoo kale waa masaajidka labaad ee caalamka ugu weyn ee muslimiintu ay lahaayeen, laakiinse maanta waxaa loo bedelay kaniisad ayaa loo bedelay. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. ma garan karo waxa aan dareenkayga idinku sifeeyo. qalbiga ayaynu ka ooyeynaa, ka ilmeynaynaa. masaajidkan walaalayaal 5 qarni wax ka badan ayay muslimiintu salaada ku tukanayeen. maantana lama ogola in hal salaad lagu tukado. iska daa in hal salaad lagu tukado, xitaa lama ogola hal sujuud in gudihiisa lagu sujuudo. wallaahi waa arrin laga ilmeeyo. gudihiisa asnaam baa dhex yaalla. gaalo ayaa u soo dalxiis tagta maalin walba. walaalayaal, keliya masaajid ma ahayn, sidoo kale wuxuu ahaa masaajid ay muslimiintu cilmiga ku bartaan. goob cilmiyeed buu sidoo kale ahaa. maalinkii 27 xalqa wax ka badan ayaa ka bixi jiray. laa ilaaha ila allah. aaway dadkii muslimiinta ahaa? aaway dadkii dhisay? aaway dadkii 5 qarni waxa ka badan gudihiisa ku tukan jiray? maalin walba 4,000 oo arday ayaa wax ka baran jiray gudihiisa. maantana wakaa kiniisad baa laga sameeyey, dushiisa kiniisadaa laga taagay. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. keliya masaajid ma ahayn, wuxuu ahaa goob muslimiinta nuurisa ayuu masaajidkani ahaa. walaalayaal, aynu baraarugno. walaalayaal, aynu dib iskugu noqonno. walaalayaal, aynu isku xishoonno. diinteenna aynu u soo jeesanno. intii aynu isku jeedna ayay gaaladu inagu soo jeesteen. masaajidkan iyo masjidu qudusku waxa ay inooga baahan yihiin garab. walaalkayga muslimka ahow, si dad fara badan ay u baraarugaan, walaalayaal sii gaarsiiya, balse aynu dadka u baraarujinno. walaalkayga muslimka ahow,